السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبة وسلامتين ملكستو دنو دافيدا كجوجتان هبي وناكسن كسو دوادا برنامجكينا أخباراتك أفلام ترك ودنبي inta badan caawa barnaamijkan waxa kaga bagan doontaan markaasiyo koonfur hindi intaan gudgalan barnaamijka data markii ku warayso boqonays channelka subscribe noo saar hana ilowina muuqaalka laga noo saarton aan qodobkana kuwaad ku bilaawna saaxiibada qiimaha badan 24 saac ka wax ina wadaagan in filimka weyn ajriya gabiyaama taariikhda hor lagu astiyaan la daawan doon laakiin maanta waxa si official loo dhawaaqay filimkan iyo waqtiga rasmi la daawan doono sida hadda shaaca laga qaaday filimkan ajriya waxa la daawan doona 1 Abriil ee sanadkan 2022 ogaada saaxiibada qiimaha badan 1 Abriil hore waxa asteetay filimkii weyn ee lagu magacaabay sarkaaliga baariga baad hogaamiyaha Suldaan Mahesh Babu sidoo kale ogaada saaxiibada qiimaha badan 40 saac ka soo gudbina Suldaan Mahesh Babu filimkiisa sarkaaliga baariga baad gabi ahaanba wala baaji waqtiga lagu tirgay in la daawado waa laga dibdhigay sida daraaddeed taariikhdan maadaama ay tahay maalin fasaxa waxa ka faa'iideysan doona filimkan weyn lagu sidoo kale maanta waxa lagu dhawaaqay ajriya la daawan doono 1 Abriil sanadkan 2022 markaan fiirno filimkan ajriya waxa wax ka maalgelinaya shirkadaha kala Sunday Production shirkadda loo magac Cordillera Production sidoo kale filimkan waxa hogaamiyaha Megastarka awood badan fanka loo yaqaan toolad qofkana maana jaran jeef ay hogaamiyaha waxa kale ku jiraan wiilkiisa Ram Jaran sidoo kale waxa ku jiraan gabdhaha kala Kajal Agarwal iyo sidoo kale Pooja Haji sida daraaddeed saaxiibada qiimaha badan oo fashion filimkan ajriya waxa la daawan doona 1 Abriil sanadkan 2022 ogaada filimkan waxa director-ka ninka lagu magacaabo Cortala Ziva dhinaca kale isla akhbaaraad kale barnaamijkan ku soo qaadanayna waxa kamid waxaan qodob idin ka haynaa ninka kale lagu magacaabo Power Star Pawan Kalyan sidaan ka warqabno ninkan saaxiibada qiimaha badan waxa u diyaarsan filimkiisa weyn lagu magacaabo Babylon Nayak sida daraaddeed teamka iskale maanta waxa ayagana si official ugu dhawaaqeen filimkan taariikhda hore lagu aastay kale in la daawan doono laakiin gabi ahaanba aan filimkan dib aan u dhigi doonin ogaada filimkan lagu magacaabo Babylon Nayak waxa la rabaa in la daawado festival sagaratay laakiin gabi ahaanba filimkan wuxuu u banay filimka weyn Trevor sidoo kale filimka Trevor asna uu baaqaday sida daraaddeed waxa la leeyahay filimkan Babylon Nayak taariikhda loo aastay oo ah 25 Febraayo bisha dambe ayaa la daawan doona sida daraaddeed saaxiibada qiimaha badan filimkan waxa isku farsaari doona labada nin kala ah Pawan Kalyan iyo ninka kale lagu magacaabo Rana Dugubati sidoo kale maanta maadaama dhankaasi koonfur hindi talagu uu ka jira festival loo yaqaan Sangarati filimkan lagu magacaabo Babylon Nayak waxa laga soo bandhigay kaartada horteena ka muuqato ninkii ah Pawan Kalyan oo xarakeena sidoo kale Rana Dugubati oo afka sigaar ku wata sida daraaddeed filimkan Babylon Nayak waqtiga loo aastay baa la daawan doona ah 25 Febraayo bisha dambe dhinaca kale saaxiibada qiimaha badan waa ka xunnahay superstarka awoodda badan dhankaas iyo Malayalamka qof kale maana ninka lagu magacaabo Mamuti waxa ku dhacay saaxiibada qiimaha badan corona ayaa laga helay wuxuu noqday positive ayuu noqday saaxiibada qiimaha badan superstarkan shalayta ayaa laga helay corona sidoo kale natiijada baaritaankiisa maanta ayay soo baxday taasoo kale inuu noqdo positive ama cudurka ayaa laga helay sidoo kale saaxiibada qiimaha badan Jalaagan wuxuu duwaa film lagu magacaabo SBI saaxiibada qiimaha badan Jalaagan wuxuu ku mashquulsanaa filimkiisa lagu magacaabo SBI 5 ayuu duway sida daraaddeed haddaba official ninkii Mamuti waxa laga helay corona sidoo kale maalmaha nagu soo socdo wuxuu gali doonaa karantiin sidoo kale ninkan taageeraysiis wuxuu kula balamay in gabi ahaanba ay qaataan mask sidoo kale markay magaalada aan banaanka aadayaan in qof walba uu mask u qaato sidoo kale ay muhiim tahay inuu qofka talaalka qaato maadaama corona dalka Hindiya uu af xooggan ku hayo sida daraaddeed ninkii Mamuti waxa ku dhacay corona ayaa ku dhacay qodobada kale barnaamijkan ku soo qaadanayna waxa kamid saaxiibada qiimaha badan iskale filimka weyn lagu magacaabo Red Sham ayaa la leeyahay filimkan waqtiga la daawan doon 24 saac nagu soo food leh ayaa lagu dhawaaqi doonaa sidoo kale saaxiibada qiimaha badan shabakadaha ugu caansan kaasi koonfur hindi ayagana waxa u doorsanaa filimkan in la daawan doono bartamaha bisha Maarso sidoo kale waxa la leeyahay saaxiibada qiimaha badan waxa u badan tahay filimkan Red Sham in la daawan doono 18 Maarso sanadkan 2022 ogaada filimkan Red Sham waxa hogaamiyaha superstarka awood badan lagu magacaabo Barabas sidoo kale waxa kula jirto atirishada lagu magacaabo Pooja Haji filimkan ayaa la rabay marka hore in la daawado festival Sangarati taariikhda markay ku aasaysan tahay 14 bisha January laakiin gabi ahaanba filimkan Red Sham ayaa dib loo dhigay maadaama guud ahaan dalka Hindiya corona oo la ciyaarayo sidoo kale filimkan uu yahay film ban India mintul magaal laga daawan doono kali uusan ku filnayn ganacsi dhankaasi Tollywood sida daraaddeed saaxiibada qiimaha badan hadda waxa loo odorsaya filimkan Red Sham in la daawan doono 18 bisha dambe 18 bisha Maarso ee sanadkan 2022 sida daraaddeed waxaan sugnaa 24 saac nagu soo foodlay in si official loo dhawaaqo filimkan Red Sham waqtiga rasmi la daawan doono markaan saaxiibada qiimaha badan soo qaadana filimka weyn ee Bangarajo iyo maalintiis labaad ganacsiga uu sameeyay filimkan aad u isku celi maadaama saaxiibada qiimaha badan dhankaas iyo Telugu ay ka jirta faysalada loo yaqaan Sangarati aad u kaga faa'iideysanaa filimkan lagu magacaabo Bangarajo maalintiis labaadna ganacsi adag ayuu dhankaas ka sameeyay sida hadda saaxiibada qiimaha badan
official loo dhawaaqay filimkan nakaasiyo guud ahaan dalka Hindiya waxa ka soo xiray lacag gaarayso 13 karoor ayuu soo xiray maalintiisa labaad waxaan laga helay saamin gaaraya 7.8 karoor ayaa laga helay qolyaha xayiraadaha qabay ka heleen marka filimkan Bangladesh lacagtiisa isku dar laba maalmood guud ahaan dalka Hindiya wuxuu ka soo xiray lacag gaaraysa 27 karoor qolyaha xayiraadaha qabay filimkan waxay ka heleen lacag gaarayso 16.85 karoor faa'iido ay ka heleen marka filimkan saaxiibada qiimaha badan waxa loo yaqaan world gross dibadda dal lacag u soo xiray isku darna filimkan lacagtiisa waxay ku dhawdaa 31 karoor ayuu soo xiray 31 karoor ayuu soo xiray sidoo kale qolyaha xayiraadaha qabay waxay ka heleen lacag ku dhow 19 karoor ay ka heleen sida daraadeed filimkan saaxiibada qiimaha badan ogaada markii uu soo horno waxa lagu iibsaday lacag gaarayso 38 karoor sidoo filimkan dhameystir u noqdo waxa laga rabaa inuu soo xiray lacag gaarayso 39 karoor sida daraadeed darajadaas hidka waxay kaga dhimantaa kaliin 20 karoor inuu soo xiray waa inuu badan tahay saaxiibada qiimaha badan filimkan markuu dhameystay week indigiisa koowaad ama weegiisa koowaad markuu dhameystay filimkan inuu dhameystir noqon doono maadaama saaxiibada qiimaha badan hadda loo dorosaay ganacsiga isniina uu sameyn doono ganacsiga saaxiibada qiimaha badan maanta hadda uu sameyn doono oo ku dhawaan doono ganacsiga shalayta uu sameeyo oo kale sida daraadeed saaxiibada qiimaha badan filimkan Bangladesh waxay u badan tahay filimka inuu noqon doono filimkii ugu horeeyay ee dhankaas Sankaratiga ama feesada loo yaqaan Sankaratiga la daabado oo hid dhameystiran noqdo sida daraadeed filimkan ay ganacsiga u sameeyay barnaamijyada dambe ay ka ogaan doontaan dhinaca kale saaxiibada qiimaha badan waxaan guri u diri doonaa teamka iska leh Boshba maadaama filimkan uu hadda hid ka dhadalacay sidoo kale u dirac darajo ahaan super hit ayuu dalaacay saaxiibada qiimaha badan filimkan Boshba ku dhawa 30 maalmood guud ahaan dalka Hindiya uu saaran yahay wuxuu soo xiray lacag gaarayso 132.67 karoor ayuu soo xiray qolyaha xayiraadaha qabay waxay keeneen lacag gaaraysa 85 karoor oo macaash ay keeneen filimkan markaan dibadda lacag isku daran saaxiibada qiimaha badan wuxuu ka talaabay lacag gaarayso 327.5 karoor ayuu ka talaabay sidoo kale qolyaha xayiraadaha qabay waxay keeneen lacag gaarayso 171.5 ay ka heleen oo karoor sidoo kale saaxiibada qiimaha badan ogaada marka hore filimkan Boshba waxa lagu iibsaday lacag gaarayso 145 karoor taasoo ka dhigan filimkan hadda profit gaaraya 20 karoor bar ayaa laga helay sida daraadeed filimka Boshba darajaan hadda wuxuu dalac super hit ayuu noqday oo guri aan leena teamka iska leh Boshba sidoo kale filimkan Allu Arjun aad looga amaan guud ahaan dalka Hindiya ku qabsaday hadda wuxuu noqday band star ayuu noqday sidoo kale saaxiibada qiimaha badan waxa la rajeen doonaa dhamaan shaqada filimkan Boshba 2 inay bilaaban doonto waxay u badan tahay bisha Febraayo bartamaheeda inay bilaaban doonto sida daraadeed filimkii Boshba darajaan hadda wuxuu dalac super hit ayuu noqday dhinaca kale markaan soo qaadana Today History maanta oo kale filimta aan kala daawaday maanta oo kale waxa la daawado filimkii Soomaalida aad ku jecelin sidoo kale mid tuma Jack Report Bangladesh aad loo amaano sidoo kale filimkan wuxuu kamid yahay waaga shaleemooyinka la daawan jiray aflaamta aadka u jeclaan Soomaalida filimkan waxa lagu magacaabay Shaari Hindustani waxa la daawaday 16 Janaayo 1998 markaan fiirno hogaamiyaasha filimkan waa mid tuma Jack Report sidoo kale waxay ku xifaaltameen ninka Gulshan Garoofan waxa ku jirtay gabadh lagu magacaabo Madho saaxiibada qiimaha badan filimkan waxa la saartay tiyaatar gaaraya 145 shilin ayaa laga daawaday waxa lagu qoray garay filimkan lacag gaaraysa 2 karoor cumraantiisana filimkan wuxuu soo xiray lacag gaaraysa 3.17 karoor soo xiray sida daraadeed filimkan darajaan wuxuu noqday average ayuu noqday markaan fiirno filimkan waxa tigid u goosto shaleemada ka daawad gaaraya 3,293,000 qof ee tigid u goosto shaleemada ka daawatay filimkan wuxuu kamid yahay filimada ee Soomaalida aad ku jecelin sidoo kale mid tumna bandhigiis aad looga amaano dhinaca kale saaxiibada qiimaha badan maanta oo kale waxa la daawaday film lagu magacaabo Jandani Joke to Jana filimkan waxa la daawaday 16 Janaayo 2009 markaan fiirno hogaamiyaasha filimkan waa Akshay Kumar Deepika Padukone mitum Jack Report iyo sidoo kale saaxiibada qiimaha badan filimkan waxa director-ka ninka lagu magacaabo Nikhil Advani waxa producer-ka gabadh ninka lagu magacaabo Ramesh Sibi ayaa producer-ka filimkan waxa la saaray tiyaatar gaaraya 1400 shilin ayaa laga daawaday waxa lagu qoray garay filimkan lacag gaaraysa 62 karoor cumraantiisana filimkan wuxuu soo xiray gaari 39 karoor taasoo ka dhigan filimkan Trevor Disaster inuu noqdo sidoo kale uu burburay sidoo kale saaxiibada qiimaha badan filimkan qasaar lixad leh ayaa laga kulmay markaan fiirna filimkan lagu magacaabo Jandani Joke to Jana waxa daawado tigid u goosay dad gaaraya 5,952,000 qof ay tigid u goosay shaleemada ka daawatay sidoo kale filimkan wuxuu noqday natiijahan noqday disaster ayuu noqday filim burbur ayuu noqday waxa halkaas inoo dhan barnaamijkan akhbaaraadka aflaamta wararka ugu dambeeya ku maasantiin daawashada daawateen muuqaalka handayta markii kugu soo boqon channelka subscribe noo saarhan ilo ina muuqaalka like noo saarto aragtida comment noo qeyb intaan barnaamijka mid ku kulmeeno amaana Allah salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh